Hoş geldiniz arkadaşlar. Maanta waxaan qaadan doonaa deyimler oo laga wado sarbeeb. Luqadda Turkiga, gaar ahaan Turkida markay jumlad dhisayaan, shantii jumladood ay ku hadlaanba waxay u badan tahay mid kamid ah inay isticmaalaan sarbeeb. Sidaa daraadeed, sarbeebtu waa inaad wax ka taqaanaan ugu yaraan qaybtii koowaad ayaynu hadda ka bilaabi doonaa. Dhowr qaybood oo kalena waa ku xijin doonaa. Sarbeebyada afka Turkiga micnaha ay u isticmaalna waa isla eegi doonaa. Evet, başlıyoruz. Waa bilaabaynaa. Reisiyonu qaadan doona waa maxay? Burnunun dikine gitmek. Burnunun dikine gitmek. Maxaa laga wadaa? Waxay u isticmaalaan sarbeebtan marka qof uu iska falo wuxuu doono. Hadhow inkiisu ka shalayn karo oo adigu la talinayso. Maxaa leedahay? Yine burnunun dikine gidiyorsun. Yine burnunun dikine gidiyorsun. Oo laga wada mar kale haddana waxaad doonta samaynaysaa. Waxaad doonta iska falaysaa. Hadhow ha shalayn camal micnahana uu ku hoos duugan yahay. Slide-keyga xiga sarbeebteena xigta isla fiirino. Leeyahay sarbeebtana göze girmek. Waa maxay? Göz waa naqaanaa, waa ish, girmekna waa gelid. Maxay u isticmaalaan markay sarbeeb ahaan u isticmaalayaan? Like in qof aad sambaatiye ka diyaarsato, dadka ay kaa helaan, wax nooca markaa samayso ayaad isticmaali kartaa. Mesela maxaa dhihi kartaa? Herkesin gözüne girdin. Herkesin gözüne girdin. Qof walba sambaatiye ka diyaarsatay, uu kaa helay, uu kula dhacay oo kale. Mesela qof baa rabta inaad dhahdo waa kaa helay, waa kula dhacay oo like sambaatiye iga diyaarsatay micnaha keelidi kale ma aha. Maxaa leedahay? Gözümü girdin. Gözüme girdin. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. O sii wadana. Yani jeton geç düşmek. Jeton geç düşmek. Waa maxay sarbeebtan iyana? Waxay ka dhigan tahay qof marka aragto inuusan durba wax fahmayn, si dhaqso ah uu wax ku fahmayn. Maxaa dhahnaa dhalinyarada sagaashanka ku kacda oo kale weeye. Ofuka maxaa leenahay marka jumlada haddii aan rabno inaan jumlad dhexeed ku isticmaalno sarbeebtan? Senin jetonun geç düşüyor galiba. oo laga wado malaha adigu durba wax ma fahantid. Xilli dambe wax fahantaa. Galiba waa malaha. Senin jetonun geç düşüyor galiba. Alimin jetonu geç düşüyor. Qaab noocaasa ayaad u isticmaali kartaa. Evet, sarbeebta xigta isla eegno. Ödü patlatmak. Maxaa laga wadaa? Waa in qofka aad ka nixiso, ka cabsiin oo kale weeye. Korkutmak gibi. Evet. Ödü kopartmakna waa maqli kartaan. Maxaan leenahay mesela haddaan jumlad ku dhisi rabno? Bunu bir daha yapma. Ödümü patlattın. Middan mar kale ha samayn. Saa mar kale waxa yeelin. Waa iga nixisa, waa iga cabsiisa. Bunu bir daha yapma. Ödümü patlattın. Evet, geçiyoruz. Sarbeebteena xigta waa maxay? Sabrı taşımak. Oo laga wado in qofka dulqaadkii aad dhamayso, dulqaad dhamayn oo kale. Qof baa ku dhihi rabtaa dulqaadka iga dhamayn. Benim sabrımı taşırma. Benim sabrımı zorlamana waa dhihi kartaa. Sabrımı zorlama. Oo laga wado dulqaadka iga dhamayn. Marka xanaaqsanta oo kale qaab noocaasa oo u isticmaali kartaa. Evet, sidoo kale dad baa ku yimi oo ku dhibahayaan ama waa aragtay in ay dulqaadka dhamaynayaan. Ina eryataa rabtaa. Maxaa leedahay? Sabrımı taşırmadan çekip gidin buradan. Intuusa dulqaadkayga dhamaan ka taga halkan. Sabrımı taşırmadan çekip gidin buradan. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Yeni slaytımız. Sarbeebteena xigta waa maxay? İcabına bakmak. İcabına bakmak. Waa maxay? In hawshaa la xaliyo, waxaa la qabto. Inta badan waxay u isticmaalaan macna negative ah. Marka qofka ka takhalusidooda oo kale iyo musalsalada inaa ka maqashaana laga yaabaa. Maxaa maqli kartaa mesela? Onun icabına bakarız. Onun icabına bakarız. Waa maxay? Qofka annaga xallin doona camal. Kala tuurayna. Soo ma dhahan waa iyadii oo kale. Dhan positive-na waa u isticmaali kartaa. Waa maxay? O işin icabına bakarım mesela. Shaqada anaa xallin doono, anaa qaban doono. Dünkü iş ne yaptın? Baa ku yidhi. Shaqada shala maxaa samaysay? Yapmadım ama o işin icabına ben bakarım. Gibi qaab noocaasa waanu isticmaali karnaa.